السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا aqoon kaal waa maxamed cali casharkani wuxuu qayb ka yahay casharka hore u soo qaadanay ee ku saabsanaa shirkadda xamuulka ama tracking company sida loo sameeyo qaabka marka xisaabta tusaale ahaan waxaan ka soo qaadanay income ku soo gala expense ka baxa iyo profitka marka haddaan daawan video hore daawan marka hore fadlan kuwan waxay ka yimaadeen qaybtan aan u bixinay income-kii ku soo galayay iyo expense-kii wixii ka baxay qarash ka baxay ma fahanti marka waxaan soo keenay dashboard-kan soo keenay dashboard-kan marka qurxinayna marka qurxino waxaan ku soo siyaadinay marka qaybtan aan ku darnay qaybtan waxa ugu talagalay tusaale ahaan marka wax laga yaabaa inay leedahay kamid kaliya la ku tahay ma fahanti marka waan taxi meel dhigtaa 35% u dhignay operationka howlgalkii 15% savingkii marka waan lacag save garaysta soo maaha 10% baan leeyahay innovationkii maarata horumarinta halka bisha January waan eegaynaa marka inta taxi u soo baxaysa waxaan leedahay equal kadib waxaad tiraahdaa waxaa ku dhifataa marka profitka ama waa faa'iidadii ma fahantin net profit halkaas ku dhifanaysaa kadib waxaa ku dhifanaysaa calaamadda ku dhifashada asterisk kadib waxaa ku dhifanaysaa 35% ma fahantin halkaa markaa joogtid u fiirso halkaas waxaa ku dhifanaysaa qaabanaysaa F4 ma fahantin waa F4 oo keyboardka halkaa marka waxaa isu kaa bedelaya dollar sign marka absolute value noqonaya macnaheedu waxay tahay marka halkaa 35% kaas ma ka dhaqaaqay marka formula bedelo ma fahanti waxaad tahay enter leh ku xiga waxaad tiraahdaa equal ku dhifataa net profitkii kadib waxaad ku dhifataa calaamadda ku dhifashada 15% halka ku guji kadib waxaad tiraahdaa F4 ka maxaa niri waxay ka dhigaysaa qiimihii midaan isbedelayn markaas kadib waxaad tiraahdaa enter kadib waxaad tiraahdaa equal calaamaddii waxaad ku dhifataa net profitka ku dhifo kadib calaamadda ku dhifashada 30% adigu siinaysa mushaharkaaga isu qoraysa weeye kadib waxaad tiraahdaa marka F4 kombiyuutarada qaybtood marka F4 marka waxa la socdaa function marka functionka eeg kadibna isla qabo marka Fn iyo F4 ma fahanti meesha ku dhifo calaamadan ka yareeya marka eberka soo kan marka bil kasta kan bisha soo qaado taxka marka bil walba inta soo gasho taxka baxay ayaysa marka sidoo kale waxay eegtaa operationka bil kasta waan dhaw marka bisha la gaaro uu ka darayo ma fahanti la soo jiid marka bil kasta ku xisaabiyo soo jeedo sanadka marka noo xisaabi qayb walba waxa ku soo baxay marka halka ku dhifo kadib waxaad sum waan ku xisaabiyo marka bilaha u fiirso ku darin kan horeeya waxa ka soo bilowdaa January ka soo bilow January ilaa December enter ku xiga waxaad tiraahdaa marka calaamadda sumka auto sum ku darin marka ka ilaali halka bilow way ka already wax xisaabineey moogti ilaa December ku xiga calaamadii ku darka ilaa December sidoo kale calaamadii isku darka ilaa December enter anuu damay wax tiraahdaa markaa isku darkii auto sum ka aadin halka soo bilow January ka soo bilow enter marka bilihii dhan waan ku diyaariyay soo jeedo marka tusaale ahaan waxa weeye sanadka halka waxa kala soconaysa marka inta tax bixisay aan u qurxino marka kan soo qaado highlight garee waxa tagtaa calaamadda halka fiiri bartaas waxa ka egtaa markaas all borders marka saddex buu yeelanaya ma jeedaa kana sidoo kale uu sameeyay waxa calaamaysay all borders cagaar baan ka dhigay midabkan caddaan baan ka dhigay ma fahanti waxa ka baxay marka u sii qurxado waxa samaysaa waxa la yiraahdo layout marka calaamadaha rigmada ka baabiyo oo dhan
halka ku dhifo view green line ka baabi wajid waxa uu soo baxay shaashad cad baa ku soo baxaysa qurux badan labada ku xigta waxay markaa ka baabayso siirada ka baabayso ebradan maanta soo baabayn kartaa waxa tirada marka highlight garee highlight kadib waxa tirada home conditional formatting highlight cell kadib waxa tirada equal to halka calaamad kadib waxa tirada marka halka zero ku qor zero halka guji kadib waxa tirada customer format fontiga ku calaamadsan meesha waxa dhigtaa cadaan ka dhig marka white ka dhig raas cadaan okay de tirada ka baabad ma jirta highlight garee waxaan nidhi conditional formatting highlight cell equal to kadib waxa tirahdaa zero laga qor kadib waxa tirahdaa custom laga dooro kadib waxa tirahdaa markaas caddaan okay de وجد marka bisha marka bilga gaarto ma ku soo ka daraya soo ma garatay hadii xagee marka xagee ka imaanay marka hawshan xagee ka imaanay salaam marka la April baa la gaaray Soomaa April maxaa sameynaysaa kan waxa ka taabanaysid kan waa shaashada ka daawanaysay wax walba oo ku soo baxo ma fahantay wajid marka waxa salaam April baa la gaaray in kan ba ku soo galay April marka waxa ku soo galay ka soo qaad sidii bishii horeeto enter maxaa ka baxay marka expenses tag April waxa ka baxay intaas ka baxday sanadka Soomaa waxa soo diray totalka soo dileen qaabkan u sameeyay marka tusaale waxa soo qaatay shirkad xamuul laakiin shirkad kasta waa lagu sameeyo oo loo sameeyo kara qaabkaas oo kale insha Allah marka waa shirkadu waxay leedahay income soo gala oo ka soo maarta xisaabsay waxay leedahay expense ama kharash ka baxa oo ka xisaabsay kharash ka baxay iyo markaas labadaas oo kale la kala jaray oo ku soo baxay marka profit-kii ama faa'iidada ka heshay shirkadda ka heshay marka faa'iidada marka waa in la qoondeeyaa soo maaha wixii tax ku bixin lahayd wixii hawlgal ku bixin lahayd waxaad safe garaysan lahayd waxaad adigu siin lahayd mushaar u qaadan lahayd iyo markaas si aad marka qayb walba aad u ogaatid sanadka wixii ka baxay ma garatid marka haddaad rabtid shirkad khaas ah leedahay oo qaab ka duwan si lagu sameeyo rabtid igala soo xiriir hoos maartay qaybta commentiga ku qor ama ii soo dir email insha Allah emailkiga waa aqoonkaal@gmail.com casharka maanta halkaas ayaan ku joojinaynaa waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday waa aqoonkaal haddaba fadlan rukumo ama subscribe aqoonkaal si casharada soo socda aad ula socotid insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wabillahi tawfiiq